والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. marka hore waxaan jeclahay ummadda muslimka oo Soomaaliyeed muslimiinta oo maanta bisha Ramadaan oo tobankii hore loo dhamaatay ilaahay inuu 20ka dambana sidii tobankan oo kale loo sahlo ka bacdina aan insha Allah ciid ku wada ciidno khayr iyo barwaaqo ayaan ilaahay ka rajaynaynaa. marka hore galmudug mudday soo martay shirkii Jabuuti iyo kii Muqdisho iyo kii halkan ummadda Soomaaliyeed iyo musliga gaalo waxay lagu farxay bay ahayd lala yaabay bay ahayd mucjizay ahayd yani khayr badan oo u soo hoyday ummadda Soomaaliyeed baa cid walba niyeysatay warka ku laalaaban maayo mucjizo waxaa ah raggii odayaasha ahaa oo runtii halkan nala joogay wax walbaba nala sameeyey maanta haddayna daba mareen oo cadaado ay tageen oo waxaan maqlay ay ku hadleen horta waa nasiib darro 15 bari baana hadda xamar la soo joogna dib noo dhigeen la hadalay wax walba u sheegnay hadda nin meel oo cadahay meel ka madow Soomaalidu tiraahdo waxaan rajaynayaa inaan u sheego walaalahay علي قاعد محل حاشي ويان نيمان يدير دور يوصل محل هرج نيمان يفرد دور يوصل يدير ماشي الملاحظة كتيهين وقلمذوق عاصمة هذه وطن برلمان كذي وايد شوقان دولة هذه وايد شوقتها وزير هذه وايد شوقان وحي عاد طبعا يساعدنا سيد الشيخ شاكر وشاقينا روح الذي كداوين كريم haddii hawshiinu noqoto sidii 8 bilood ka hor dhacday oo kale oo yani markaasna waxay ahayd ahlu sunnah la doonin baa dagaalku ahaa haddana maxaa loo keenay way dagaalku waa wax iska cad oo loo ogyahay dhibka iyo nacaybka yani diidada la diiday ahlu sunnah inay carrada soo gasho weeye dhibaatada jirtaa wax kale maaha taasna waa ka gaashaaman doonaa reer galmudug haddaan nahay walaalaha iyo sida sheekhu sheegay soo dhawaada haddayna soo dhawaanayna dee waa arrin maaragtay waa nasiib darrada ka mid tahay dadka reer cadaado shacabka reer cadaado walaalaha iyo waa horeyna u wada hadalay wax walbana waa ku wada hadalay wax dhibaato naga dhexeeyaana ma jirin ballanqaadyadii hore aan ballan qaadnay waa ku taagannahay laakiin waxaan leeyahay ka ilaaliya cadaado inay noqoto god waraabo laga soo duulo oo dadku dhibaata ay uga timaado dadka imaanaya waa ogtihiin shabaabka 40 kilomitir bay idiin jiraan reer cadaado nimanka hadda imaanaya fidnada ka abuuraya tolowba shabaabkay soo dhaweynayaan masaajidka ixsaan idiin samaynaya anigu waxaan leeyahay waa horseed shabaab iska celiya dhulkiinana u diida dhibaatada iyo dagaalka iyo mashaakilka maalin walba lagu samaynayo ka diida oo iska bixiya dadkaas maaragtay fidnada idinku wada wax badan anugu sheegi maayo reer cadaado ayaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu celinayaa reer cadaadow waxa dhibka lagu wada waa idinka nimankan xamar waxoogaa ku soo qaadi waayeen bishii September oo sanad hore bishii 9aad dibkii ka jiray waad ogeydeen iyo khatarta ay gashay cadaado ilaahay weynaa iyo maaragtay ay ku badbaaday amarkiisa mooye waxay gashay khatar maantana walaalayaal khatar kale ha horseedina waa bil Ramadaan ilaahay ka baqa isku laabta la hadla dadkan maaragtay idiin imaanaya haddii ay wanaag wadaan waa soo dhaweynaynaa hadday qaswadayaal yihiinna iska fogeeye waxaan ku soo gunaanadayaa waxaa muuqata oo marna wagtana soo gaartay in wasiirka arrimaha guduhu uu ka hadlay arrintan waxaan jeclahay inaan u toosiyo hadalka ah ahlu sunno iyo waxaan wada aragnay
galmudug ahlu sunna ee galmudug ma nihin annaga hadda galmudug baan nahay waa run waanu wada aragnay wasiirka arrimaha gudaha waa ballanay 2 bari wuu noo qabtay oo yiri war baan idinku keenay 2dii bari waa maaragtay war uma soo celin annaguna waa iska soo dhoofnay arrinta hadda uu ku dhex jirana waxaan u arkaa inay tahay faragelin qayaxan taas oo ah midii horay golaha CIC markii 15 bishii hore 16 uu go'aan ka soo saaray ahayd faragelinta in laga daayo dowlad goboleedyada waxaan u sheegaynaa oo ku wargelinaynaa dowladda federaalka in aysan faragelin ku samaynin halkan galmudug waa xor baarlamaan bay leedahay wasiiray leedahay kabineet bay leedahay wax walba waxooda go'aanada iyada gaaris cidii ayadu shakhsiyaada oo banaanka istaagaysan ayada u taal anagu cidda fogeyn weyna waa soo dhaweynaynaa kuwa hadda naga tagay hadlahay waa soo dhaweynaynaa kuwa kale imaanayna waa soo dhaweynaynaa laakiin waxaan codsanaynaa dowladda federaalka sidii 8 bilood ka hor ay si qayaxan ay noo soo faragelisay inaysan mar labaad noo soo faragelin baan uga digaynaa mar labaad mar saddexaad baan uga digaynaa waxaan idinka rajaynaynaa oo aan maaragtay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha gaar ahaan in faragelinta haddii ay agtiina hadda ka jirtaan aad naga daysaan haddii kalena aad ka digtoonaataan mar labaad inaan faragelinta nagu samaysaan sidii 8 bilood ka hor dhacday oo kale aad iyo aad bay mahadsantihiin